بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم. walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ugu horeyn waxaan tacsi u dirayaa ahlada dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay ex-control afgooy. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu u naxariisto kuwii dhacwaamina ilaahay ha bogsiiyo. intaas kadib, magacaygii waa Zubayr. dambiilayaasha al-shabaab ayaan ka tirsanaa 12 sano. markii ugu horeysay aan iskhilaafnay aniga iyo xarakada waxay ahayd markii qaraxa hotel Shamo uu ka dhacay 2009. anaa hogaaminayay guddiga garsoorka ahaa ee kala xukumay Axmed Godane iyo odayaasha kale oo kale ah Ibrahim Afkan, Abu Mansuur Robo iyo Fuad Khalaf. markaan aragnay in Axmed Godane uusan ixtiraamaynin shareecada, waxaan go'aansanay aniga iyo rag kale inaan ummadda u cadeyno xaqiiqada xarakada oo ah inay jidka toosan ka leexdeen. taasna waxay ahayd 2013. markaas kadib waxay dileen Ibrahim Afkan iyo Macalin Burhaan, anigana xabsi ay i taxaabeen muddo 3 sano ah. murtida warkayga maanta ma ahan taariikhdaas inaan ka hadlo, laakiin waxaan rabaa inaan ummadda uga digo xarakada iyo hogaankooda. dhalinyarada aaminsan in nimankaas ay diinta difaacayaan waxaan ku leeyahay, nimankan ka hara waa niman lunsan, shareecada iyo muslimiinta ku ciyaaraya. waad arkaysaan gabadfalada ay sameynayaan, dhiiga muslimiinta ay fududeysanayaan iyo ummadda ay been u sheegayaan. hadda ka hor been ay idin sheegeen markay Ibrahim iyo Burhaan dileen. waxay dhaheen sababta aan u dilnay waa inay xarako cusub dhisi rabeen. waa beentood. anaa la joogay nimankaas, wax cusub oo la dhisayo ma jirin. sababta ay u laayeen keliya waa cabsida ay ka qabaan inay nimankaas hogaamiyaan xarakada iyo inay joojiyaan ceebantood. waa isla sababtaas waxaysan ugu biirin Daacish, waayo haddii ay ku biiri lahaayeen way og yihiin inay weynayaan hogaanka oo amiirka Daacish ayaa magacaabi lahaa qof kale, sidii Nigeria ay ka dhacday oo kale. al-qaacidana salaaxiyad male inay hogaanka bedelaan. sabab aan taas ahayn ma jirto, waayo fikirka iyo dhaqanka al-shabaab iyo Daacish waa isku mid, waxay ku kala duwan yihiin male. marka nimankaas dantooda shareecada maaha, iisan idin lumin. hogaanka xarakada waxaan ku leeyahay, falal dambiyeed waaweyn ayaad gasheen. waxa ugu weyn qaraxii Soobe iyo kii ex-control. Cali Dheere maadaama uu qirtay inaad idinka ka dambeyseen, dadkii ku dhintay iyo kuwii dhacwaamay oo dhan ayaa diyadooda la idinka rabaa. qiilka aad sheegteen waa waxba kama jiraan shareecada marka la fiiriyo. shareecada bari ay ka tahay dilalka aad muslimiinta u geysanaysaan. wixii faahfaahin ah ayaad bayaankeygii ka helaysaan. haddii aydan isku dhaqaynin shareecada, muslimiinta ha marin habaabinina, dhalinyarada ha luminina noloshooda. ugu dambeyntii, shaki igama jiro inaad isku dayi doontaan inaad i dishaan. anigana qof geeri ka cabsanayo ma ihi, shartiinana ilaahay baan ka magan galay. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. حقنا وعدينا إلا أمدا أي كأوغاني سودين لأنتينا. إنتي غور تهي إلهي وطوبت كينا بإنتينا يفسهات كيننا جوجيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.